Court Hotel waxa uu ku yaalaa dalka Malaysia buurta Kulu barteeda ugu sarreyso. Waxa ay siisaa dalxiisayaasha aragtiyo aad u ballaaran. Waa aag cabsi badan oo ay adag tahay in loo dalxiis tago. Dhismaha Amber Court waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu dhaadheer Malaysia, inkastoo uu yahay mid burbursan ee lama degaan ah. sidoo kale waa mid ku qarsoon buuraha kore ee Malaysia. Dalxiisayaal badan ee muddo sanado ah halkaasi ku qaatay ayaa soo sheegay in ay la kulmeen waxyaabo badan oo aan caadi ahayn, kuwaasi oo ka dhex muuqanaya dhismaha hoteelka. kuwa qaarkii ayaa yiri waxa aynu ku aragnay dhaqaaqa haweenay cirfiid ee soconaysa hareerta dhismaha Amber Court. marka loo eego nabadgelyada waa goob aan la ogolayn in si fudud loo tago. maxkamadda Amber ayaa mamnuucday iyaga oo ku handacoonaya inay tahay goobtu meel cabsi badan. goob cimilo qabow aanu isbedel lahayn ay ka jirto, ceeriyaamaduna ay dabooshay gabi ahaanba waxyaabaha dabiiciga ah ee halkaasi ka muuqda. waa goob mar lagu soo bandhigay filim lagu magacaabo The Haunted Hotel, laakiin qaar ka mid ah howlwadeennada filimka ayaa ka baqay oo ay u suurtagali weysay inay sii wadaan hawsha filimka ee dhismaha cabsida ee Amber Court dhexdiisa. Amber Court ma awoodi karo ruux walibaba inuu u socdaalo ama uu booqdo. waxaa sidoo kale ilaalo ka ah goobta ciidamo loogu talagalay inay dadku dib uga celiyaan gelinka dhismaha, halka dalxiisayaasha qaarkii loo ogolaaday in ay xoogo cajiib ah ka soo saaraan oo ay u soo bandhigaan dadka. waa goob dabago' ku dhacay ee laga xagaabaxay. muuqaalkani waa documentary aan idinkugu soo bandhigi doono hoteelka ugu cabsida badan dunida. waxaan ahay Cabduqaadir Maxamed. ogolaanshiyaha codsiga muuqaalka waa mid sharciyeysan. waxa ay fursadu ii saamaxday inaan afka Soomaaliga ku gudbiyo. wariyaha waxa uu isku dayayaa inuu gudaha ugu talaabo hoteelkani laga xagaabaxay. waxa uu leeyahay goobo baarkin ah ee gawaadhida la dhigto. waxaa ka dhex muuqanaya gawaadhi goobta looga tagay muddo qiyaastii la eg 10 sannadood. wax kor u dhaafaya qudhooda ayaa cabsi ku gelinaya. wariyaha ayaa isku dayaya inuu koro qaybaha sare ee dhismahani Amber Court. waxaa qaybta kore bilowga gelinka sare ka muuqanaya mootooyin burbursan ee aad u tiro badan ee goobta looga tagay. laakiin weli waxa ay u muuqataa in goobta ay u isticmaalayaan warshada dharka, laakiin lama hubo run ahaanshiyaha qeexaya arrintani. badankooda irdaha iyo goobaha lagu talagalay daawashada xayawaanada ayaa qunfulan. dhinaca kale, kadib gelinka iridkiisa waxaad ku dhex arkay ganacsiyo badan ee goobta ka shaqaynaya. martida dalxiisayaasha ee hoteelkani laga xagaabaxay ayaa ka adeeganaya. kuwa ugu badan ee halkan yimaada waa dadka dhismaha ka shaqeeya ee gobolka. qiimaha agabka xaruntanna waa mid aad u qaaliya. waxaa jira cabsi ka dhex jirta dhismaha, taas oo muujinaysa in uu jiro cirfiid ama ruuxaan. saaxiibkayaga ayaa mar ii sheegay isaga oo keli ku ahaa qolkiisa in uu maqlay, laakiin halkani ma degana ama kama agdhawa wax qoys ahi ay caruur wata. hoteelka Amber Court ee ruuxaanta ayaa weli waxaa ka dhex muuqanaya qaar ka mid ah shaqaalihiisii. waxa ay inoo xaqiijinaysaa in hoteelka uu yahay mid aad u mashquul ah xilliyada fasaxa ee toddobaadka.
waxaa ku sugan dad ka soo jeeda Shiinaha iyo Japan ee ka howlgalaya dhismaha Amber Court. 2017 ayay ahayd markii halkan lagu duubay muuqaalka filim Aasiyaan ah ee lagu magacaabo Haunted Hotel. waxa uu wariyaha sii korayaa qaybaha kore ee dhismaha, waxa uu nala kulmayaa goobo aad moodo in nadaafadooda la hagaajiyay oo loo diyaariyay in la isticmaali doono. balkooniga dhismaha qaybta kore, viewga magaalada ayaanu laga arki karayn sababo la xiriira cimilada oo ah mar waliba noocan idin muuqanaya. waxa aan maalintii sugnay in aan helno marti soo booqato hoteelka, laakiin ma aysan dhicin, balse imika waa habeen. waxa aan rajaynayaa inaan la kulanno marti cusub. halkan aan ku noolahay waa meel aad u qabow badan, waana wax aan macquul lahayn in halkani aanu laga heli karin cimilo kulul. mar walibana irdaha waa kuwa inoo oodan, laakiin sidaas ay tahay waxaan maqlaa foorida qof. waa u dhahda wariyaha muuqaalkan soo diyaariyay Powell oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala Free Documentary TV. waa aroor hore, waxa uu isku dayayaa in uu mar uun la kulmo marti hoteelka degan. qaybo ka mid ah gelinka hore ee hoteelka ayuu kula kulmay kooxo rag ah ee da'yar ee gawaari la socda. mid ka mid ah iyagu ayaa qeexaya in uu halkan ku nool yahay sanado. waxa uuna sheegayaa in halkan ay ku nool yihiin marti kale si joogto ah ay u degan yihiin. halkan sida aad arkayso waa calaamado Shiinees ah. runtii waa qol sixirka lagu sameeyo. ruuxaanta uma gudbi karto banaanka. xaqiiqda sida ay tahay tani lama ogola. laakiin Malik waxa uu ku nool yahay qayb aad u mashquul ah oo ay la nool yihiin rag kale ee fara badan. waligay ma aanan seexan kali. 6 ruux ayaynu ku joognaa halkani, maxaa yeelay hoteelka waxaad ka dhex maqlay dhawaaqa codad ruuxaan ama jinni. qaybta koowaad ee documentary-ga halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. inta aynu qaybta xigta ee labaad iyo sheekooyinka cabsida leh ee hoteelka Amber Court aynu kaga kulmi doono. nabadgelyo ayaan idinku dhaafay. waxaa soo saaray tarjumay idinlana socodsiinayay anigoo Cabduqaadir Maxamed. haddii ay tahay markaagii kuugu horeysay ee aad ina soo booqato, rukumo channelkanaga si aad ula socoto qaybaha xiga ee documentary-ga. haddii aad u baahan tahay documentary-ga noo dhammaystiran ee ku baxaya afka Ingiriishka, waxaan qaybta hoose kugu soo bandhigayaa lifaaqa laga heli karo. mahadsanid ka mid ahaanshiyaha daawadayaashanada ku taxan channelka SomaStream.